wiilkan deeq darajo weeye waxaan malayaa wiil daaroodo inuu yahay xog maal media buu leeyahay haddaan ku siiyo wasiirka amuuraha dibadda idaacad ay daarood ku leeyihiin baa wareysanaya maraykanka oo dhanna ma garanaysaa waxbaa Soomaaliya lagu soo qorayaa moogta calankii yaraaba gadaal la keenayaa waa brainwash waxyaalahan oo kale waa brainwash marka waxa la keenaa intooda badan community-yada waan aadaa moogta I think 70% waa daarood marka dadka xitaa presentation ka sameynaya 70% waa daarood ya keenaan muscad oo VOA u shaqeeyo haba gidira nimcaan hilaac tusmo hay oo hadda dee wadanka yimid oo la keeno isagana meelaha lagu buuxinaya jareer weyn lama arko raxan weyn lama arko kaaba oo gabadha haddana laga guursaday farxiyo cabsiyo xitaa lama keeno moogta marka waxa weeye 70% kale waxa weeye markaas waxa looga sheekeynayaa kacaankii history kacaanka uu sameeyay beenta ahaa ay bugti ahaa iyo waxaas laga sheekaystaa wax ay Soomaalida ma Soomaali bal meesha lagu soo qorayaa calanka Soomaaliland la keen maayo KDDS lama keenayo North Eastern Province lama keenayo Djibouti lama keenayo Soomaalida waxa weeye waa qoomiyad ma garad meel ma wada degnay waxa weeye wadamay kala leedahay waa in markaa daacadad Soomaali ku soo qorato waa in dadka dhan ay ka wada mid yihiin marka ninkani waxa weeye anigoo hadalka kama sanaysto ma garad reerka daarood uu shaqeynaya maskiin yar halkaas la soo fadhiisay reerku u qaylinaya uu og yahay isaga kursigaas uu rabaa samaroon waxa uu maayo kursigiisaas markuu waayo wax xanaaqaya isaga walaalkii waa aqoon-yahano lagu fashilmay wayna fashilmay aqoon-yahanada Soomaalidu dhan way fashilmeen wax ma sheegaan because waxay rabaan inay wax cunaan sidii caadada ahayd halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa annaga noo dawladeyn meysaan sidii caadada ahayd assalaamu calaykum wa rahmatullahi